gacmeedku dacal kaga yaal Radio Simba dhacdo kasta sheeka ka dambaysa sheeko kastana dhacda ka dambaysa Radio Simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho qodobada ugu door kora waxaa kamid ah maamulka Soomaaliland ayaa xabsiga dhigay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani taliyaha ciidamada booliska ayaa sheegay inay ka hortageen banaanbax oo ku dhawaaqay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee amiirka dalka Qatar ayaa kulan ku yeeshay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ciidamada ammaanka Soomaaliland ayaa xiray wadooyinka soo gala xarunta guud ee xisbiga wadani hogaamiyaha xisbiga mucaaradka UCID ayaa cambaariyay xariga maamulka Soomaaliland ay kula kaceen mas'uuliyiinta ka tirsan Soomaaliland wadani dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inay ka shaqeynayso sida ay u kala fogeyn lahayd maamul goboleedyada dalka wasaaradda beeraha ayaa shaacisay inay wado qorshe lagula dagaalami lahaa ayaxa maalmihii la soo dhaafay lagu arkay Soomaaliland Puntland iyo Galmudug iyo wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Iran ayaa digniin u diray shacabka dibadbaxyada ka dhigaya dalkaasi iyo shacabka dalka Sri Lanka oo taageeray madaxweynaha cusub ee dalkaasi wanaagsan ismaqal wanaagsan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeena subaxnimo ugu door korona waa subaxnimo isniina taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 18 bisha 11 ee November 2019 ku soo dhawaada warkii subaxnimo idaacadda Simba oo fidsan maamulka Soomaaliland ayaa xabsiga dhigay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani dhinaca kalena hogaamiyaha xisbiga mucaaradka UCID ayaa cambaariyay xariga maamulka Soomaaliland ay kula kaceen mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani عدي فتاح مؤمن إلك عسى أيا إنه هيا taliska ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa waxay xabsiga dhigeen taliyaha ayaa waxay xabsiga dhigeen xogayihii xisbiga wadani iyo sidoo kale afayeenka mas'uuliyiintan ayaa la sheegay in ay xabsiga u taxaabeen ciidanka booliiska Soomaaliland kuwaasi oo ay sheegeen in markaasi ay ku hayaan arrimo dhowr ah oo ay sheegeen in ay ku xadgudbeen taliyaha ciidanka booliiska ayaa waxa uu sheegay in mas'uuliyiintan xabsiga loo taxaabay ay dambiye kala duwan ay ka galeen dalka isla markaana waxa ay uu tilmaamay in markaasi xisbiyada mucaaradka looga baahan yahay inuu hoggaansamaan amarada ka soo yeera madaxda maamulka Soomaaliland iyo waliba talisada ciidanka booliiska ciidamada markaasi la xiray ama mas'uuliyiinta la xiray ayaa waxaa magacyadooda lagu kala magacaabaa xogayaha xisbiga wadani ka iyo sidoo kale xogayaha xisbiga wadani Qadar Xuseen Cabdi waliba afayeenka xisbiga Barqad Jaamac Baatuun kuwaasi oo ay sheegeen taliska ciidanka booliiska Soomaaliland
in muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay ku raajoogeen falal markaasi ay sheegeen lagu kicinayo iyo weliba dibadbaxyo looga soo horjeedo maamulka somalilan. afhayeenka waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid faysal cali waraabe ayaa arrintaasi ka hadla isagoona sheegay in la caburinayo siyaasiyiinta ee ku nool deegaanada uu ka haray maamulka somalilan islamarkaana looga fadhiyo in ay markaasi ay meelmariyaan. waxaana uu sidoo kale uu sheegay in mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani aysan ku kicin tilaabooyin lagu xiri karo islamarkaana aysan saameyn fal ay ku mutaysan karaan in xarig loo geysto. isagoona ugu dambeyntii ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay xarigaasi in taliska ciidanka booliiska somalilan aysan haysan wixii markaasi looga bartay islamarkaana waxa uu sheegay in keliya ay haystaan horumar dhinaca amniga ah. maanta arrinta waxay xasuusinaysaa arrintii 2009 oo kale habeenka oran jiray nabad ku seexda nabadna ku soo toosa. waxaan waxay nabadna ku seexda nabadna inshaalla ku soo toosa waa leeyahay. arrintan ay ka mudaharaadayaan xisbigan mucaaradka wadani horta maalintan soo degna waa arrin qaran baan niri. arrintan waa arrin qaran labada xisbi qura kuma koobna. markaa horeysa markaa waxaan horta cambaaranaya xarig dawo maaha. ilaa haddana action dee wadani ku kaco dadka lagu xidhaa horta mudhexno qofku falk sameeyo ayaa la xidhaa. waa laga yaabaa in dee la yidhaaho si aanu mudaharaad ku dhicin tactics kale la ciyaaro, laakiin xarig dee waxa weeye waa in lagu degdegay. waxaan jeclayn si dadka loo soo diray xorriyadooda. waxaan xasuusinaya laakiin mas-uuliyiinta reer somaliland mucaarad ahaado ama maxaafid ahaado dowladda dadka reer somaliland mujtamaca reer somaliland wixii dowlad looga baran jiray ma haystaan. basic service ma haystaan. waa lacag bay iska bixiyaan. quuto daruurigaa shaqaysta. islaanta hilibka ka soo qaadaysa kawaanka haddaa wadada laga xidho berita maalin laga xidho maanta way qaadaysaa reerkoodii. dadkaas waxay weheshadaan waa amni nabad bay warsadaan. nabadda dadka reer somaliland ummadan haysatay. wararkii ugu dambeeyey saakan ka heleno deegaanada uu ka harmay maamulka somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa ayaa lagu soo waramayaa in xiisad ay halkaasi ay ka taagan tahay saake oo una dhexeysa madaxda ugu sareysa ee maamulka somalilan iyo xisbiga mucaaradka ee wadani, taasoona sababtay in markaasi madaxda xisbigaasi ay sheegeen in isu soo bax ballaaran ay markaasi ay abaabulayeen sida uu taliska ciidanka booliiska uu sheegayo. xiisada ayaa cirka isku sii shareeraysa kadib markii ciidanka somalilan ay xalay xabsiga dhigeen afhayeenka xisbiga iyo sidoo kale xogayaha xisbigaasi oo wadani, taasoona la sheegay in mas-uuliyiinta xisbiyada kale ee mucaaradka ay si weyn ay ugu soo horjeesteen. taliyaha cusub ee ciidanka booliiska somalilan sareeye gaas maxamed aadan oo goor sii horeysay warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in isu soo baxyada uu ku dhawaaqay gudoomiyaha xisbiga wadani ay ka dhalan karto dhibaatooyin kala duwan, sidaasi daraaddeedna aan marnabo laga qaban karin. waxaana dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro uu dhankiisa la hadlay warbaahinta uu sheegay in isu soo baxyada ay kula hadlayaan taageerayaashooda uu maanta qabsoomi doono, islamarkaana saraakiisha ciidamada somalilan looga baahan yahay ama looga fadhiyo in sharciga ay ilaaliyaan islamarkaana aysan ku xadgudbin xisbiyada mucaaradka ah ee markaasi afkaarahooda soo gudbinaya. wararkii ugu dambeeyey saakan heleno ayaa waxa ay sheegayaan in dhagaxaan lagu jaray wadooyinka soo gala xarunta guud ee xisbiga iyo sidoo kale ciidamada booliiska ayaana hordhooban xafiisyada xisbiga oo loo ballansan yahay in hortiisa ay isu soo baxaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo shacabka qeybihiisa kala duwan. taliyaha ciidamada booliska somalilan ayaa sheegay inay ka hortegayaan banaanbax uu ku dhawaaqay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani. taliyaha booliska maamulka somalilan maxamed aadan saqadhi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu jawaab adag ka bixiyey hadal ka soo yeeray hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan ciro. waxa uu sheegay inay sharci darro tahay in banaanbax lagu dhawaaqo. waxauna sheegay in mudaaharaad guuleysta uusan ka dhicin deegaanada somalilan. waxa uu sheegay in mudaaharaad aan sharci ahayn aysan yeeli doonin maamulka somalilan islamar ahaantana ay ka hortegi doonaan.
oo daba socda hadalkii bisha November 2019 uu jeediyay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan oo ugu yeedhayay ummadda reer Hargeysa inay isugu yimaadaan maaragtay meel gooba oo maaragtay halka ugu yeedhay taasay daba socotaa sidaan horeba u sheegnay ama aan u sheegay waxaan sheegay inaan sharciga ku adkaan doono hadii alla yiraahdo marka dad la isugu yeedhayo lama arkin wali mudaharaad Soomaaliland ka dhacay oo inta badan najaxay mid walba dhib iyo dhibaato iyo hawl ba ka marka la isugu yeedhayo dad ummad la doonayo in la kiciyo sharci bay leedahay mudaharaadku sharci buu leeyahay dalbaynahay sharci leh sharci waxaan lahayn ma yeelimeyn mudaharaad aan sharci lahayn inuu dhaco ama ummadiina soo ururtay marka dambeena waxay doonto samayso aan sharciyeysan ma yeelino sababtoo ah dadka ay soo imanaya dadku dad badan oo dadku wanaagsan laakiin in xun baa dhex socota ujeedooyinkii la isugu yeeray ee guracnaana way dhex socdaan yeeri mayno dadka wanaagsan ee qudradda iibinaya ee danahooda wata ee bulshada reer Soomaaliland noocyada kala gedisan noocay doonaan ha ahaadaan in dhibaato halka kaga timaado inta sharci darro la isugu yeero dabadna khaladaad ka soo dhaxbaxay booliska istiitita yeelimay mudaharaadka waanu joojinay ma dhacayo sababtoo ah waa bila sharci wax bila sharciyana dalkana sharci buu leeyahay hadalkan ka soo yeeray taliyaha booliska Somaliland Maxamed Aadan Saqadi ayaa waxa uu ku kala qaybsamay mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka Somaliland iyadoo hadalkan ka soo yeeray Ciro ay jawaab ka bixiyeen mas'uuliyiinta ka tirsan Somaliland iyadoo sidoo kale Maxamuud afayeenka madaxtooyada Somaliland ninka lagu magacaabo Maxamuud Warsamo Jaamac uu jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray Ciro waxa uu sheegay in Somaliland ay ka jirto xukuumad lagu soo doortay dimuqraadiyad isla mar ahaantaana ka talinaysa masiirka iyo wada noolaanshaha ummadda reer Somaliland xeer lambar 20 golaha wakiilada ee gudoomiyaha ka ahaa waxa la hor keenay 7 jeer 7 jeerba waxa lagu sameeyay wax ka bedel 7 jeerba gudoomiye Cabdiraxmaan ayaa gudoomiye ka ahaa golaha waxaana gacantiisa ku saxay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan oo markaasi ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland dokumentiyada iyo qoraalada iyo saxiixyadaasi keedka qarankay ku jiraan hadii gudoomiyuhu yiraahdo ma waafaqsani ama ma aqbalayo xeerarka ka soo baxa golihii wakiilada macnaheedu waxa weeyaan sharciga ma ogoli dalkuna sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay qawaaniin buu leeyahay kala dambeyn buu leeyahay wuxuu sheegay in reer la bartilmaameedsanayo in reer la beegsanayo xaasha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka jirta xukuumad waxa ka jira xilal qaran si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya deegaanada Somaliland ayaa waxa ay sheegayaan in xisad kacsanaana laga dareemayo magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxaana la sheegay in ciidamada booliska ay xireen dhammaan jidadka iyagoo ka hortagaya mudaharaad uu ku dhawaaqay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka iyo amiirka dalka Qatar ayaa kulan ku yeeshay magaalada Doha ee dalka Qatar عدي فتاح مؤمن أيام مركلة إنه هي حسن على قيري رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية يا مقالة دوحة كلهم كلقاتي أمريكا قدر تمين بن حمد الثاني كلهم كان يحمري لبد المسؤول أو كلاه رئيس وزراء حسن على قيري ولبا أمريكا تمين بن حمد الثاني أي اللوجه اللي حوجين تحريركي ولبا سكاشي لبد الجيسودة لبد الدولود لبد الشعب ولا لا رئيس وزراء حسن على قيري ولبا أمريكا يا سيدو كلا إسلاسو هذا القاضي horumarka ay dowladda federaalka Soomaaliyeed ay ka wado gudaha dalka isla markaana ay ku talaabsatay 3 sano ee la soo dhaafay waliba sida guulaha laga gaaray isbedeladii la soo dhaafay ay dalka ugu soo jeedinayaan indhaha maalgashadayaasha caalamka oo Soomaaliya u arka dal ay ka jirto fursad wanaagsan oo ka dhalan karta isbedelka guud dowladda federaalka Soomaaliya waa dowladaha Soomaaliya ee Qatar ayaa leh xiriir soo jireena oo qoto dheer iyo iskaashi ganacsi amni iyo waliba dhaqaale waxaana dowladda Qatar ay Soomaaliya ay ka fulisaa mashaariic horumarineed oo looga qayb qaadanayo dib u soo kabashada dalka xasan cali qeyr oo dhankiisa hadlay ayaa waxa uu sheegay in markaasi uu kaga mahadcelinayo soo dhaweynta diiran oo uu sameeyay amiirka dalka Qatar
isagoona ku bogaadiyey dadaalada ay dalka soomaaliya ay ka wadaan dowladda qatar iyo weliba shacabkeeda ayuuna ugu baaqay in mar walba labada shacab ay yihiin kuwo isgarabsanaya oo walaalo ah. ugu dambeyntii dowladda soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii horumar dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha ay la yeelan lahayd wadamada horumaray oo ayna qeyb ka tahay dowladda qatar. dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inay ka shaqaynayso sidii ay u kala fogeyn lahayd maamul goboleedyada dalka, iyadoo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi uu dhaliil u jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ku eedeeyey inuu qas ka wado maamul goboleedyada dalka, waxaana arrintaas taageeray mid ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada puntland oo lagu magacaabo daahir ciiro. daahir ciiro waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay ka shaqaynayso sidii ay u kala fogeyn lahayd maamul goboleedyada dalka, waxa uuna sheegay inay faragelin baan ku hayso maamul goboleedyada dalka ka jira. waxa uu sheegay in maamul goboleedyada looga baahan yahay in ay gartaan dastuurkooda islamar ahaantana ay ku dhaqmaan, balse waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka iyadana looga baahan yahay inay heshiis saxa la gaarto maamul goboleedyada dalka ka jira. hadalkii uu sheegay muuse biixi waan dhegeysanayay waa shurli. dowladda federaalka soomaaliya intii ay dadka soomaaliyeed isu soo celin lahayd dadkii kala irdooday waxay ka shaqaysaa inay kala fogeyso. jubbaland baan ognahay, galmudug baan ognahay meesha sida laga dhigay, hirshabeen la soconaa, koonfur galbeed baan la soconaa, puntland baan la soconaa ilaa iyo xilligii doorashadii dambeeto iyo waqtiyadii ka dambeeyey dhammaan waxaasoo dhan. marka inta muuse ka sheegay dowladda federaalka waa lagu eedeynaya, waana wax jira practica oo xad weeye. marka laakiin dadka soomaaliyeed oo siyaasiyiinta ah oo talada dalka wax ku leh waa loo baahan yahay inay ayagu shuruucdana ilaaliyaan kana joogaadaan, dadkana ay mar walba dhiirigelin ku siiyaan inay nidaamyadooda iyo meelaha ay joogaan kala joogaan. laakiin waa in laiska ilaaliyaa sistem xumada taala oo qaarro iyo farmaajo waa maasanta adar waxaa looga horjeedi karaa maamul goboleedyadu waxay leeyihiin shuruucday leeyihiin, xeer hoosaadyay leeyihiin, golo xukuumeed baa jira, galo garsoor baa jira. dhammaantood ayagoo maslaxadda guud ilaaliyo oo maslaxadda guud oo dalka ku dhaqma ayaa loo baahan yahay oo ay haddii maslaxadda guud ilaaliyaan maslaxadda gaarna iyada ayay ugu dhex jirtaa. marka insha allahu ayagoo maslaxadda guud ilaaliya ayay dadkana ku kasban karaan, dadkana kula shaqayn karaa, kuwaasna looga hortegi. hadalkan ka soo baxay siyaasi daahir ciiro ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha maamulka somalilan uu dowladda federaalka ama madaxda dalka ugu sarreysa uu ku eedeeyey inay faragelin ku hayaan maamul goboleedyada dalka ka dhisan. wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka ayaa shaacisay inay wado qorshihii loogula dagaalami lahaa ayax maalmihii lasoo dhaafay lagu arkay somalilan, puntland iyo galmudug, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey dadka ku nool gobolada dhexe ee soomaaliya iyo sidoo kale waqooyiga soomaaliya ay ka cabanayeen ayax saameyn ku yeeshay dhirta iyo sidoo kale deegaanka ayaa ayaxaasi waxa uu xaalufiyey dhirta iyo daaqa, waxaana sidoo kale shacabku ay sheegeen inaysan ka hortagi karin ayaxaasi. ayax ayaa waxaa la tilmaamay in xilligii dowladihii dalka soo maray lagula dagaalami jiray waxyaabaha diyaaradaha dagaalka, waxaana la sheegay in hadda aysan jirin arrintaasi. wasiirka beeraha xukuumadda federaalka ayaa war ka soo saaray arrintaasi, waxa uu sheegay in ay wadaan qorshe ay lagula dagaalami lahaa ayaxa, balse waxa uu tilmaamay in ay hadda ay ogeysiinayaan dadka ku nool gobolada dhexe ee soomaaliya in ay jirto qayladhaan ku aadan in ayax uu ka dilaacay deegaanada somalilan, puntland iyo galmudug, isagoo sheegay in ayaxaasi uu kasoo galay dhinaca waddanka Ethiopia. waxaan halkaan isugu nimid maanta inaan ka warramo xaaladda kasoo korortay ayaxa oo ku habsaday meelo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya. waxaa ka taagan runtii masiibo weyn oo sababtay ayax fara badan oo kasoo gudbay dhinaca Ethiopia iyo dhinaca Yemen. ayaxaasi wuxuu khatar ku yahay deegaanka iyo beeraha iyo daaqa intaba. wuxuu ilaa hadda u guurguurayaa goobo kala duwan. ayaxaan weliba noocaan uu yahay dadka khubarada ku ah oo hadda soo baaray waxay noo sheegeen inuu yahay nooca khatarta ah oo u kala safri kara meelaha aada ku fogfog. ilaa hadda wuxuu ayaxaasi uu aada u saameeyey gobolada awdal, sanaag, nugaal, mudug, galgaduud, meelo kalena u gudbana waa dhici kartaa. wasaaraddu waxay kasoo saartay arrintaas qayladhaan ay la wadaagtay hay-adaha ku shaqada leh. waxaan
wargelinay oo u tagnay wafdi u dirnay agaasimaha guud hogaaminayo ururka ka hortagga ayaxa ee xaruntiisa tahay Ethiopia waxaan wargelinay ururka hay'adda FAO qaybteeda ayaxa qaabilsan waxaan u dirnay tiimam wasaaradda oo ku soo sameeya kormeer kana soo qaada daato goobihii ayaxu ka jiray wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka ayuu ahaa oo qayladhaan ka soo saaray ayax maalmihii la soo dhaafay lagu arkay deegaanada Puntland Galmudug iyo sidoo kale Somaliland guud ahaan dhageystayaal warkii subaxnimo oo kala socoteen idaacadda Simba inta ayuu ku dhan yahay cidii uu sheegay waxay dib kaga heli karaan simbanews.net أهلا وسهلا سهلا ورني وقورماتي من دبدان بكوكو أوغاي أنا شل يا أمي شل ماتي الحمد لله مرقى حالي هذه الدار حي وحنا